بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. waxaa habboon Soomaali ayaan maanta waxaan usoo bandhigayaa laba dhacdo oo gobolka Awdal ka dhacday oo midna ahayd 30 January 1984 1984 ta kalena ahayd 4 February 1991. dadka waaweyni waa laga yaabaa inay wada og yihiin, laakiin dadka da'yarta ah ee aan warka haynin baan rabaa inaan u iftiimiyo. taasi waa mid. waxaana habboon in dhacdooyinka taariikhiga ama taariikh xun ha ahaadaan ama taariikh wanaagsan ha ahaadaan, in qaarna muxuu ahaadee la sheego oo la buunbuuniyo, yacni qaarna muxuu ahaa la tafiro oo muxuu ahaa hoosta la geliyo oo la yidhaahdo muxuu ahaa lama sheegi karo. taasina ma habboona. waxaa habboon in wax la isku qiro. waxaan ku bilaabayaa hadalkayga Booba Yuusuf Ducaale oo ka hadlayay arrintaas. oday la yidhaahdo Maxamed Cabdi Yuusufna haystay oo muxuu ahaa ku maagayay, yacni Boorama iyo Sanam dad iyo dila iyo bay dad ku laysay ku maagayay Maxamed Cabdi Yuusuf. Boobo nin aan qadarin iyo ixtiraam badan u hayaad tahay, laakiin aad baan uga xumahay inaad Maxamed Cabdi Yuusuf yacni u rakaabsato. maxaad u sheegaysaa dadkaanu dila ku laynay iyo Boorama? wax aad iyo aad looga xumaado. maxaad u sheegaysaa? waxa uu sheegay waa runtii, been ma sheegin. labada adiga qabsanayaa been sheegay. taariikhda inaad ka been sheegtaana waa mid aan habboonayn. odayga si walba muxuu ahaa yani aflagaada iyo wixii ma soo wada qaadanayo, laakiin dee kelmad baad u isticmaashay. tiri yani maaragtay Ibrahim Gadle ayaa gabaygaa muxuu tiriyo un soo qaadanaya. anuu Ibrahim Gadle yidhi ku odhan maaye, waxaan ku odhanayaa aniga in yar ku odhanaya. Boobo aftaag yaan soo qaadanayaa. aftaag waa tolkaayoo isbatuutaha dhalayoo dhiig buu ku talax tegayoo toobadkeenka ma yaqaano, taladii u boobiyo tolaay buu la kowsaday. waa isla garanaynaa waan malanay. haddaan kuugu daro, adna tiirin weydo toobiyaha wanaagga ah u tilmaami weydee, toobad seeg ha noqonini taariikhda baal dahab ha lagaaga tiriyee, qiro tala xumaantii qiro. boobow tala xumaantii dadka kala takoortee naarta lagu tagaayee ad adigu taarwalaha ka ahayd. waa inaad qirtaa. haddaad qiri weydo taadana la qiri maayo. booba intaasaan leh. waxaan u gudbayaa madaxweynaha nimanka jooga Soomaaliya ka horreeyey Xasan Sheekh Maxamuud ayaan u gudbayaa. isna aan runtii hadal ka soo yeedhay aada uga xumaado. shacbiga Soomaaliyeedna aan ma garanayo yani maarta sida arrintaas u arkeen. wuxuu soo dhaweeyey oo uu yani wax yaroo iska yani maaragtay korxaadisa ku tilmaamay yani raaligelintii iyo garowshiyihii uu madaxweyne Farmaajo dadka waqooyiga kasoo jeeda, gaar ahaan yani maaragtay Hargeysa iyo Burco ee nidaamkii kalitaliska ahaa wixii uu ku sameeyey uu muxuu garowshiyaha iyo raaligelinta ka bixiyey. si korxaadisa buu usoo qaaday. okay, taa mabuu diidin. wuxuu diiday Farmaajo oo xagga dambe ka raaciyey dadkii iyaguna qoriga sitay ee jabhadaha ahaa, dadkii ay laayeen iyaguna garowshiyaha ka bixiyaan. waa gaf buud. madaxweyne nin aan qadarin badan u hayay baad ahayd, ilaa imikana waad ila tahay, laakiin aad baan uga xumahay in aad yani waxyaabaha qaarkood si muxuu ahaa aan soomaalinimo ahayn aad u eegto. aad baan uga xumahay runaanti. waan ku celinayaa dhacdooyinkii aan hadda sheegayey ayaan muxuu ahaaye tilmaamaya. aad hadalkaygaa Soomaaliya ay u dhegeyso. laba dhacdaa ku dhacday gobolka Awdal. labada dhacdaba waxa mas-uul ka ahaa SNM. jabhaddii SNM baa mas-uul ka ahaa. mid si dadban bay noogu dhacdayoo muxuu ahaa ninkii korneylka ahaa ee Mengistu Haile Mariam loolan jiray Ethiopia dargigii dowladdii ka talin jirtay waqtigaa ninkii xukumayay ayaa nagula kacay. dagaal Soomaali ka dhexeeyey markaa oo socdayna ma jirin.
wax cadaawad gaar ahoo boorama iyo mangistu xayla maryam ka dhaxaysana may jirin anigu bangigii horumarinta ee Soomaaliya qaybaha waqooyi ayaan mas'uul ka ahayo manager ka ahayo Hargeysa joog waqtiga waa 30kii January 1980 sidee wuxuu dhaceen oo dhan baan ogahay oo xaqiiqadu muxuu ahay waad ogtihiin oo meel walba ay taalaayo muxuu ahaa yani dad gobolka gashaan iyo dad muxuu ahaa buugaag akhridaanba te dhacdo yani maaragtay la ilaawi kara ma ahayna adduunka oo dhan bay qoranta 30kii January 1980 lix diyaaradood oo kuwa dagaalka MiG-21 iyo MiG-23 kala ayaa boorama iyadoo la iska baraad laayahay oo nabad iyo caano iskuulada iyo muxuu ahaa meel walba loo dareeray oo dadku iska shaqaysanayaan bil lix diyaaradood ramiimka ka dhigay boorama maalinta waa yani wax xisaab ay noqotay xagay wax ka yimaadeen dadku way weerareen waa lagu weerar laakiin de waan ogaanay si aan muxuu ahaa balaayo kale uga dhalanin de maanaan kor ugumaanaan qaadqaadin laakiin de wax la wada ogyahay oo meel kasta ku qoraabeen haddii waxaan bayaaminayaa oo kaliyoon maanta u sheegayaa siday asana mas-uul uga ahay shirqoolkaasi boorama iyo dhagartaasi mangistu xayla maryam boorama ku garaacay diyaaradaha wuxuu ka bilaabmay Hargeysa shirqoolkaas wuxuu ka bilaabmay raashin laga doonayay taliyihii qaybta 16aad gaani ninkii loo jiray maxamed xaashi gaani oo uu diiday ayuu ka bilaabmay shirqoolkaas shirqoolkii halkaa ka bilaabmay wuxuu gaadhay wadada tareenka ee isku xidha Jabuuti iyo Diridhaba in la gooyo ayuu gaadhay in wark mangisto loo geeyo markiiba la yiraahdo waxa gooyay jabhadii Horyaale Gadabursi iyo jabhadii Sheekh Ibrahim Bilise Oromada ahayd ee boorama fadhiday ayaa wadada gooysay in la yiraahdo hatta halku ka bilaabmay iyo muxuu ahaa sababtiisana waan sheeg waa Hargeysa ka bilaab sidaas uu mangisto boorama ku garaa mangisto colaad gaar ah oo boorama kala dhaxaysay ma jirin warkii Soomaali u geysay ee Hargeysa ka bilaabmay ayuu boorama ku garaacay mangisto ninka oranaya de asal mas'uulka ma aha ha sheeg oo caday inaanay mas'uul ka ahayn oo ha sheega sababta kale ee ay ku timid in lix diyaaradood boorama garaacaan taas waa mid tan kale ee muxuu ahaa boobe uu ku qabsanayo maxamed cabdi yuusuf ee dila iyo booramay ee sawti cadayday la wada arkay maalintaana kaarihii xabashada hor socday kaarihii mangistu baa hor socday jabhada asal oo dila ku jiilay oo dad ku laysay oo muxuu ahaa xoogaga dhigtay oo boorama ku gashay oo maayarkii muxuu ahaa magaalada boorama iyo reerkiisii iyo gaadhigiisii iyo wuxuu dhan lagu gubay inan yar baa ka hadhay dadkii kale yani meydka muxuu ahaa waan soo gaadhay anigoo xamar ka tegay ayaa 1991 soo gaadhay meydkii oo weli la ururinayo oo laga xaadhayo magaalada wax dhacay bay ahayd oo taariikhda ku jira see loo dafiri karaa waxaa habboon waan kusoo gabagabeynaya in Soomaali wixii kala gaadhay ee 30 sano halkaa dhigay in la iska cafiyo garawshiye in laga bixiyo in la isku qiro in hore looga socdo sidaasi ka habboon oo waxaasi looga dawoobi karaa ma jirto haddii kale dee yani in maalin walba la xoqo muxuu ahaa wixii dhibaato iyo boogihii dadka muxuu ahaa soo kala gaadhay aad baan uga xumaay runaantii inaan yani maanta sidaas muxuu ahay labada dhacdo uga sheekeeyo hor in badan baan ka sheekeeyey tan dila iyo laakiin tan diyaarada magaalo garaacay iyo diyaarada magaalo garaacay anigu ma odhanayo dee way hagaagsanay ma odhanayo waan qirayaa in Hargeysa la garaacay waan joogay markii la garaacayay markhaati baan ka ahay burco dee maan joogin Hargeysaan joogay waa la garaacay madaafiic baa lala dhacay si xun baa loola dhaqmay laakiin yaa ula dhaqmay systemkii markaa jiray ee kelidii taliska ahaa ayaa dee sidaa ula dhaqmay laakiin midnimo Soomaaliyeedna waxba ma yeelin laba gobol oo midoobay oo isku tagayna waxba ma yeelidii ha ragga qaar ku doodaya muxuu ahaa yani midnimaan muxuu ahaa waxna yeeshay midnimadu waxba ma yeelin waxbaa ku kala maqan waa lagu kala caban karaa waa laga wada hadli karaa laakiin
dhibtan yaa geystay systemkii markaa joogay ee xukumayay Soomaaliya ayaa geystay midna waa xaqiiqo dee laga ninka odhanaya yani kala go'a Soomaaliya xaaraan maaha dee waa xaaraan waxaan arkaa rag badan oo aqoon-yahan oo imika ama yira ama ha la kala tago ama ha la isku soo noqdee war ama meesha kuma jirto wax kala tagayaa ma jiraane laakiin sida wax loo wada yeelanayo iyo sida muxuu ahaa loo wada dhaqmayo dadkan ilaahay baa isbaday waa Soomaali diin iyo muxuu ahaa magac iyo muxuu ahaa af iyo yani wax alla waxa kala geyn kara iyo wax ay ku kala duwan yihiin ma jirto amana ma galeysay yani waxa weeye arrintaas sida looga wada hadlayo dadka wixii ku dhacayna looga garaabayo intaasun baa ka filan waan halkaasaan ku joojinayaa muxuu ahaa Soomaali dhalinyaro iyo dad waaweynba intaan ogeyn waxaan dhacdada diyaaradaha ugu celinayeen ugu soo celiyay sida uu u hadlay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaan ugu soo celiyay isaga ayaan u sheegayaa inay taasina taalo ha akhriyo buugga uu qoray muxuu ahaa Mengistu Haile Mariam ha akhriyo buugaagta kale ee muxuu ahaa laga qoray arrintaas ha akhriyo madaxweynuhu boobana intaas muxuu ahaa uma dhaafayo haddaad qiri weydo wixii aad geysatay carabta waxay tiraahdaa i'tiraafu dambi fadiila yani waana raganimo inaad waxaad qof u geysatay tiraahdo warniyo waxa waan ka garaabayaa raaliga ah war raganimada ka mid ma aha doqonnimo ma sidii Muuse ha u hadlin oo odhan yahay moodin in muxuu ahaa sabirku doqonnimo yahay ama dulqaadku doqonnimo yahay maya maaha waxaan kaga baxayaa Soomaali dhagaha ha u furto waxa dhacay ha ogaato ha noo garnaqda malihi laakiin waa in la isku qiraa waanu qiraynaa ha qiraan hadday qiri waayaan ma qirayn. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.